sanu boganiga wa kuwa badangala balwenta yan laga boojenin kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qayaale meel kastoo adduunyada ka joogtaan ku soo dhawaada janaalka aan ku leenahay barta YouTube-ka ee Kulmis Media. daawada maanta waxaan idiin wadnaa taariikhda fanaanada ka daba dhacay ee lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka oo kooban. inteenan galin marka hore ku soo dhawow gacmo furan janaalka waa janaalkaaga. fanaanada lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka magaceeda oo saddexan waa Fartuun Xuseen Cali Sheekh. waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Kaabagoday. heerka waxbarasho Fartuun iskuul miisan dhigan wax ma qorto waxna ma akhriso waa sida ay sheegtay. Fartuun da'deedu waxaa lagu qiyaasaa 25 jir. Fartuun waa hooyo leh carruur Ilaahay u deystay. Fartuun hadda waa single oo ay madax bannaan tahay. Fartuun fanka waxay ku soo biirtay 2019. Fartuun markii ugu horeysay ee shaashadaha laga arko waxa ay ahayd isla sanadkan aan ku jirnay, waxaana lagu arkay janaalka lagu magacaabo Durdur Media oo madax uu ka yahay Xasan Toob. Fartuun inta aysan heeseedii ugu horeysay qaadan waxay ku soo caanbaxday riwaayadaha gaagaaban oo laga daawan jiray Durdur Media. Fartuun heesteedii ugu horeysay waxay qaaday isla sanadkan aynu ku jirnay, waxaana lagu magacaabaa heesta wiilo wiilo way kana yarkaan jeclay way kana adiga daraada hurda diiday kamoon baby waa ku jeclahay. waxaana kaamiramanka ahay Xasan Toob, waxaana laga soo daayay isla janaalka Durdur Media. heesta wiilo wiilo waxay keentay dood aad u weyn waxayna qabsatay baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo YouTube. Fartuun waxay ku heystay surwaalka iyo jaakadaha ragga kaas oo ay markii dambe sheegtay in uu lahay Xasan Toob. Fartuun waxay bulshada kala kulantay caay iyo aflagaado taasoo la xiriirtay in ay meel uga dhacdo fanka Soomaaliyeed, laakiin taas kama horjoogsan in ay ka dhabayso hamigeeda oo waxay gaartay heer ay qabato show. Fartuun waa tagtay oo tilaabsatay oo waxay soo saartay heeso badan. Fartuun waxay kasbatay taageero aad u fara badan, inkastoo ay dadka qaar dhaliilaan midaas oo iska cad waayo qof walba oo magac leh qaar ayaa taageero qaarna waa ay dhaliilaan. adduunka ayaa sidaas iska aheeyay. sida aan wada ognahay kol hore waxaa dagaal ka dhex qarxay Fartuun iyo gabar lagu magacaabo Najmo Cudoon, laakiin ugu dambeyntii waa ay heshiiyeen. muran iyo isku dhac dheer kadib Fartuun iyo Durdur Media waa ay kala daneysteen oo safaaradaha ay kala rarteen. Fartuun waxay si shakhsi ah u furtay janaalkaas oo lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka Official, halkaas oo ay ku xiran yihiin taageerayaasheeda sharafta leh. taageerayaasha qiimaha qayaale taariikhda fanaanada Fartuun Balbalaarka caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. tan iyo muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana Allah.